بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu nagu manaystay nimcooyin aad iyo aad u waaweyn. waxaa kamida inaan ku dhex jirno bisha barakaysan ee ramadaan, khaasatan iyo weliba 10kii ugu dambeeyeyna aan markaa marayno. 10ka ugu dambeeya bisha ramadaanka ah waa 10kii loogu rajo badnaa in laga helo habeenka ka fadli badan 1000 bilood. waa laylatulqadri. laylatulqadriga ah, habeenka laylatulqadriga ah waa habeenka ilaahay uu fadiiladeeda ku tilmaamay inay ka khayr badan tahay khayrun min 1000 shahr. idan waxaa nala gudboon walaalayaal raadraadin, waxaa nala gudboon xanjeerasho, waxaa nala gudboon dadaal iyo firfircooni, waxaa nala gudboon cibaadada inaan ku dhex jirno habeenada laylatulqadrigaasaan ilaahay u waafaqno, rabbina aan ka baryayna inuu markaana waafajiyo. cawa bisha barakaysan ee ramadaan waa 24. 10kii ugu dambeeyey nimcooyinka wanaagga ku dhex jiray ayaa markaa ku jirnaa. laylatulqadri qofkii waafaqa khayr iyo wanaag buu gaaray. walaalayaal, hal la raadiya laylatulqadri, yaan la caajisin. haddii la seexanayo habeenka horta inta laga seexdo, inta dambe ha lasoo tooso. waayo qofaa laga yaabaa inuu dhoocaaboo dhan waan dhafrayaa laylatulqadri saan u raadinayo, 9 sac marka la gaaraa laga yaabaa inuu seexdo, hurdana ay la tagto, salaada subaxna ay markaa dhaafto. wuxuu raadinayay iyo wixii la amri waa shay sunno ah. salaadii waajibka inay dhaaftaa suuragala, sida ayaan la yeelin. waayo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala asagoo xadiisulqudsi noogu tilmaamaya, weli ani aan leeyahay qofkii la colaytama oo naca oo diida, waxaan ogeysiiyey xarba iyo dagaal. anaa la dagaalamaya buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. addoonkayga ma jiro shay aan uga jeclahay inuu iigu soo dhowaado mima iftaradtuhu caleyh, waxaan ku waajib yeelay. wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil, markuu waajibaadka xafido oo waajibaadkii ilaaliyo oo wixii waajib ahaa uu sidii loogu talagalay u guto, haddana kama zuulo addoonkayga inuu iigu soo dhadhowaanayo sunnooyinka ilaa aan jeclaada buu yidhi. saasaa loo baahan yahay walaalayaal. laylatulqadriga qofka inuu waafaqo waa lagama maarmaan. waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala khayr uu ku gaari karo, laakiin yaynan ku dhaafin wixii waajibaad ah. addoonkayga waxaan ku waajib yeelay ma jira shay aan uga jeclahay inuu sameeyo mima iftaradtuhu calayh. wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil, addoonkayga kama zuulo inuu sunnooyinka iigu soo dhadhowaanayo ilaa aan jeclaada buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. haddaan jeclaada dhegihiisaa noqonaya oo wax uu ku maqlo, xumaan baan ka ilaalin. muusiku ma dhegaysanayo, xan ma ku dhegaysanayo, heese ma ku dhegaysanayo, diin la-aan ku dhegaysan maayo. indhihiisaan ahaadaa buu yidhi ilaahay. indhaha uu wax ku arko, indhaha uu wax ku arko. khayr mooye xumaan ku arki maayo, wanaag mee xumaan ku fiirin maayo. saa darteed baan gacmihiisii lugihiisa noqonayaa buu dhahay ila subxaana wa tacaala. addoonka saa loo hagay, hadduu i weydiistana waan siinayaa, hadduu i magangalana waa magangelinayaa buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala. haddaba walaalayaal, ramadaanku waa 24. waa inaan rabbigeen ka baqnaa, waa noo gebagabe. waa inaan ku mintidnaa maalmaha gaaban ee noo haray. waa inaan khayrka aad uga faa'iidaysanaa. waa inaan beer fiican jannada gudaheeda ka kasbanaa. waa in ramadaanka aan ka dhignaa ramadaankiina loogugu dembi dhaafayey, khayrkii wanaaggana markaa lagu gaarayey. bacdamaa ilaahi subxaana wa tacaala laylatulqadriga uu dhex yeelay ramadaanka, khaasatan 10ka dambe hadda aan ku jirno, khaasatan tirooyinka isdheer. caaisha nebiga u timid sala allahu calayhi wasalam, markaasay tiri yaa rasuul allah, waxaad ii sheegtaa haddaan ogaado ayu layla oo laylatulqadri ay tahay, maa aquul, maxaan dhahaa, maxaan ku ducaystaa rasuulkii ilaahayow? allahu akbar. nebigu wuxuu yidhi, caaishay waxaad dhahdaa, allaahumma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. allaahumma
ilaahayow yaa allah inaka cafuwun cafin badnaa tahay, wax ka cafin badan ilaahay ma jira subxaanahu wa tacaala. walaalayaal ma waxay nala tahay inaan annaga mutaysanay inaan adduunka joogno, mise cafi ilaahay baan ku joognaa subxaanahu wa tacaala? yaa anaga naga mid ah oo camal uu sameeyey ku mutaystay khayr iyo walaakin adduunka lagu siiyo ma jiro ilaa cafinta ilaahay maahana subxaanahu wa tacaala. caaishay dheh allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. allaha cafinta jeclow iska kay cafi, allaha cafiyow i cafi. allaahumma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. ilaahayow iska kay cafi dheh. nabiga sala allahu calayhi wasalam caaisha waa tababarayaa. caaisha waxa laylatulqadriga wax anfacayuu u sheegayaa. caaisha gurigeeda faynus inay tili maad moodaan walaalayaa. firaash fiican inuu yidhi miyaad u malaynaysaan? 3 bilood baa laba ii dhammaato tii saddexaad ii dhalatay tir caaisha oo gurigeega dib aan lagu shidin radia allahu tacaala canha. la dhihi maayo rood ceesh iyo hanti ilaahay weydiiso. nebi maxamed markuu leelka u kacayo uu tukanayo lugta iyo qanjaruufanaa bay tiri. sababto waxa waaye inaan ka laabuu rabaa, guryaha misbaax ma laha, waa iska fidsanayaa bay tiri. waa gabar yar, ilaa uu istaaga ku dheeraado oo qur'aanka akrinayo yaan lugiga iska fidsanaa. markuu doono inuu sujuudo saan uga leexiyo lugta dhag iga siinaa, markaasaan ka leexinaa. guryihiina faynuusya ma aalin radia allahu tacaala canha. maxaan dhahaa? maxaan ku ducaystaa? dahabkii aan arooska ku aadi lahayn baan maanta dalabnaa. xataa xaaraan baa lagu keenaa, wax kastaa maanta lagu samaynayaa. sidaa darteed baa caaisha oo sidaa ilaah wuxuu ku oranayaa nebigiisii, allaahumma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii dheh. allaha dadka cafiya oo cafinta jecelow iska kay cafi. ilaahayow iska kay saamax, ilaahayow ii dembi dhaaf, ilaahaw cafin iyo caafimaad isii. xaalada ilaahay weydiisa walaalayaal. laylatulqadriga haddii la waafaqo ilaahay cafin hala weydiisto. war khayr adduun iyo mid aakhira ilaahay ha laga dalbo. war khayr adduun iyo mid aakhira ilaahay ha la weydiisto. war habeenka waa fursada gacanta ha lagu dhigo. war habeenka ilaahay ha lagu ilxaaxo, ducadayaan laga joojinin. waa farxaa marka la baryo, waa jeclaadaa addoonka marka la baryo. marka la baryo waayo ilaahay wuu caroonaya subxaana wa tacaala. saa darteed baa baryaha ilaahay aad iyo aad uu u qiimo badan yahay. nebiyadii dhammaan baryo ilaahay bay la beegsadeen. mid kastoo kamida ilaahay ayuu baryaayay. war baryuhu waa cibaado, baryaha ilaahay la baryayo waa cibaado subxaanahu wa tacaala. ambiyada dhammaan waxay ahaayeen kuwa ilaahooda barya, maysan ka kibri jirin, maysan iska weynaysiin jirin. ilaahay ayay in badan baryi jireen subxaanahu wa tacaala. ilaahay nebi ibraahim calayhi salaam markii lasoo qabtay ee dadka lagu riday, ilaahay buu tuugay subxaanahu wa tacaala. rabbi ayuu gacmaha u taagtay. jibriil ayaa u yimid markaasuu dhahay, ibraahiimo waad xirxiran tahay, dibkana waa lagugu tuuri lahaa oo lagugu tuuri rabaa. wax dana ma u baahanta waad iga leedahay, maxaan kuu qabtaa? ama anta falaa buu yidhi, may addoon anoo kalaa tahay. ilaahayna ima mooga subxaanahu wa tacaala. ilaahayna ima moogo, ilaahay wuu ii jeedaa subxaanahu wa tacaala. mar allaala markuu qoomkii si kasta u waaniyey ee uu yidhi uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illaahi afalaa tacqiluun. uf iyo qurun baa idiin sugnaaday idinka iyo waxaad caabudaysaan ilaahay sokadiisa. maxay dhaheen? qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin. qabta oo guba bay dhaheen, una gargaara ilaahyaalkiina haddaad faaciliin tihiin. ilaahay ayuu baryey. nabiga muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, xasbuna allah wa nicma alwakiil. qaalaha ibraahim. ibraahim baa yidhi xiina ulqiya fi nnaar, markii naarta lagu tuuray. nebi moxamed ayaa yidhi markii loo yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum. dadkii way idiin jamceen, gaaladii way idiin aruureene ka cabsada. wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil. kaafigeen waa ilaahay, in wakiil laga dhigtan ilaahay baa u nicmo badan subxaanahu wa tacaala. isla markii uu sidaa yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. waxaan ku dhahnay dabkii dan qabowna noqo ibraahim dushiisa. keed iyo dhagar bay la dooneen, ilaahayna kuwa khaasiriinta ayuu ka dhigay subxaanahu wa tacaala. xaaladaa waxay tilmaamaysaa baryaha in wax weyn uu yahay. ilaahay oo la tuuga inay aad iyo aad u qiimo badan tahay walaalayaal. nebi nuux ayuu ilaahay ka hadlay subxaanahu wa tacaala. wa nuuxan id naadaa rabbah. nuux may walaqad naadaanaa nuux fala nicma almujiibuun. walaqad naadaanaa nuux.
nuux baa noo qayliyey, nuux baa noo dhawaaqay buu yidhi ilaah subxaanahu watacaala, walaqad naadaanaa nuux falanicma almujiibuun. intii ajiibtay ayaa nicmo leh. mar kale ilaah muxuu yidhi fadacaa rabbahu, ilaahay buu tuugay annii maqluubun fantasir. isla markii fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir, samaawaadka albaabahoodii baa la furfuray, biyo munhamir ah oo soo qubmaaya yuu ilaahay ka soo daadiyey subxaanahu watacaala. gaaladii saasaa markaa loo halaagay, gaaladii saasuu ilaahay u halaagay subxaanahu watacaala. baryaha ilaahay waa shay aad i aad u qiimo badan. waayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya dur wa anta arxamu araaximiin. wa ayuub waa nebigii mashaakilka la saaray, la imtixaamay, muxuu u qayliyey ilaahay, yuu u qayla dhaansaday rabbigii. waayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya dur, ilaahu dhib baa i taabtay, wa anta arxamu araaximiin. cidda naxariisata adaa u naxariis badan. fastajabnaa lahu, isla markii waanu ka ajiibnay. fakashafnaa maa bihi min dur, dhibkii hayaanu ka qaadnay. waaataynaahu ahlahu wamidlahum macahum raxmatan min cindina wadikra lilcaabidiin. ilaah muxuu tilmaamaya subxaanahu watacaala, wadannuuni id dahwa mugaadiban fadana an lan naqdira calayh wanaadaa fi dulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin. saasuu u baryay fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algam wakadalika nunji lmu'miniin. murugtii baanu ka qaadnay, mu'miniintana saasaan u badbaadinaa. yaa soo haray zakariya, wazakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin. dhammaan ilaah bay gacmaha u horsanayaan, ilaah baa awlaad la weydiisanayaa, kurba in laga qaado ilaah baa la weydiisanayaa, in loo gargaaro ilaah baa la weydiisanayaa. laylat lqadri 10 ay ku jirtaan